haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, dhulka soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dalka punt wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca cidhifka ugu dambeeya qaaradda afrika waqooyigeeda bari. xagga barigu waa dhul hooseeya oo kuleyl badan, waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn, inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meelo ku yara roon, kuwaasoo ku teedsan biyomareennada aaraaba qallalan ee togaga lagu magacaabo. wuxuu dalku leeyahay laba webi oo jubbo iyo shabeelle lagu kala magacaabo, kuwaasoo dhex qulqula gobollada koonfur galbeed ahna dalka oo idil meelaha ugu dhiraysan ee kaymaha ballaaran ay weli wax kaga dambeeyaan. dhinaca xeebaha waqooyiga waxaa ku yaal buuraley silsilad ah oo golis loo yaqaan, taasoo taxan laga soo bilaabo raas casayr iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhulsaraadka amxaarada. sida la ogyahayna buuraleydaas halka ugu dheeri waa buurta surrad cad lagu magacaabo oo jooggeeda lagu sheegay ku dhowaad 8,000 oo cagood. magaalada berbere ayay dhanka bari kaga beegan tahay, qiyaastiina 150 kilomitir ayay u jirtaa. dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka degaanada dhulbaraha ku yaal. guud ahaanna heerkulkiisu wuxuu u dhexeeyaa 80 ilaa 110 darajo oo ah cabirka Fahrenheit-ka. 4 nur ama 4 xilli ayay soomaalida sanadu ugu qaybsan tahay. waa gu, waa xagaa, waa dayro, waa diraac. guga iyo dayrta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da'a, inkastoo ay yihiin kuwo aan sidaa u badnayn. sidaa darteedna aan isku hallays lahaynoo mar la helo marna la waayo. taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay. waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waa la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan. taariikhda soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro ba'an oo xilliyo kala duwan dalka soo maray, sida haariya, xaaraama cuna, hawaara, gaadaweyn, hargacuna, mugweyn, dabadheer, baastaaley iyo kuwo kale oo dhaaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jiray. xagga sayniska iyo culumta degaanka markii laga eego, waxaa jira sababo la yaqaan oo ay dartood abaaruhu ku dhacaan, kuwaasoo xaalufka dhulku uu ugu weyn yahay. hase ahaatee ummadaha diinta islaamka rumaysan oo ay soomaalidu ka mid ka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo kuwaa ka weyn, darteedna ay abaartu ku timaado. waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo, siyaalaha uu abaalmariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan, kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan. sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusanna, cirka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe, dhulka oo caws iyo midho dhali waayaa waa ciqaab eebbe, xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe. abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin. haddaba soomaalida oo muslim wada ahi kolkii ay abaari ku dhacdo, intay isu soo baxaan bay wadajir u allabari jireen. yar iyo weyn, culimo iyo caamo, rag iyo dumar, bandiiran bay isugu iman jireen. daanku qalinlaha hamigiisu dugsi qur-aanka ku xiran yahay ayay goobta soo taagi jireen, oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraan oo qorraxda joojiyaan ayay ka codsan jireen dadka iyo duunyadaba roob khayr leh inuu eebbe u weydiiyo. isla goobtaas ayaa salaada roobdoonta loo yaqaan lagu tukan jiray. halkaas baana inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray, iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weyn yahay. ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow, gabyaaga reeraha ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen isaguna inuu eebbe baryo. hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo. bulsho ahaan
waxaa ka dhaadhacsanayd rabbi agtiisa in gabyaagu uu weji ku leeyahay oo sida habaarkiisa loo aqbalo ay u dhow yahay in ducadiisana loo aqbalo. sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanso roobdoonta ku saabsan, taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaarka xigi doonaba aan ku soo qaadi doono. aanu horraysiiyo cali xuseen xirsi oo ku caan baxay maansooyinkiisii gobonnimo doonka uuna tirin jiray xilliyadii madax bannaanida dalka halganka loogu jiray. haddaba horaantii 1946 mar ay abaar darani dalka ku wada baahday ayaa cali la weydiistay gabay roobdoon ah inuu eebbe ku baryo, isna wuu yeelay, inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abbaarin. waxay filayeen oo keliya intuu gacmaha kor u taago inuu eebbe dhab ugu baryo, iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan. ha yeeshee iyagii dhibbanaa ayuuba eed iyo canaan ku asbaysiiyey. wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebbe ka mutaysteene aanu ka gardarrayn. tixay dulucdeedu sidaas tahay ayuu tiriyey, taasoo uu ku bilaabay su'aal hordhac ah oo ahayd: dadow, haddaan idiin sheego abaaraha sababaha keenay, kulayl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la'yahay, gofo roobaad sababta cirkii looga waayey, sababta ay xoolihii u le'deen, sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay, bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada le'atay. wixii intaasiba inoogu dhaceen haddii aan idiin sheego, ilaahay ma loo noqonayaayo ma lagu waantoobayaa? su-aashaasna wuxuu ku yidhi: niman yahow, abaaraha dhiciyo beliya aafaadka, dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa, raxmaddii ilaahay waxay noogu iman weyday ee adhiyo geelii marshada ebarka noo saaray, aradka iyo gaajada waxay nagu alhuumeeyey, geeduhu waxay u engegeen, ubaxna loo waayey ee ay ugaadhu u baktiday, ayda midhanaysay, eelkaa wixii dhigay, haddaan idin ogeysiiyo, ilaahay ma loo noqonayaa? axadkii weeyaan. jawaabtii cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd: haahoo eebbe waannu u noqon, waanadaadana waxbaannu ku qaadane, bal calow noo sheeg waxaannu galabsannay oo eebbe uu roobkiisii nooga daystay. dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen, sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la'aantiisa, iscollaysiga iyo isgardarraysiga, nacaybka ay uurka isugu hayaan, kala dhaca xoolaha iyo ammaano cunkooda. wuxuu yidhi: haddii ay islaamnima jirtoo la ijtihaadayo, shahaada iyo toobadii lama ilaaweene, ilaahay ma loo noqonayaa? axadkii weeyaane. goortay ilma adeeradii uurka ka colowday, igaar weliba kii xigay, markuu dhacay adduunkiisa, goortii ammaanada la cunay, ehelku kuu dhiibtay inkiraadi goortay timid, ee aamin la iswaayey afka buuxi mooyee, markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? axadkii weeyaane. alalaasku goortuu ka karay or iyo duulaanku, niman ayra kaa dhicin markii udubka loo saaray, oofaha markay kala heleen kaalka la afeeyey, goortay asayda u xidheen ooliduu meershay, maatadu markay ooyayeen loo arxami waayey, markii aabbayaa lagu dilee gaban agoomoobay, inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? axadkii weeyaane. sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya ayuu cali kuwii hore ugu daray qaar kale, sida barashadii diinta oo afafkii shisheeye laga doortay, dhaarta beenta ah, xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey, salaadii oo laga tegay iyo ugu dambaysta shaydaan oo loo hoggaansamay. wuxuu yidhi: axdinimaad lahaydeen markuu oofin kari waayey, aayadaha diinta markii iida laga doortay, isimkii ilaahay markii la istixayn waayey, akilkaad cunayseen markii loo abtirin waayey, inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarin, ilaahay ma loo noqonayaa? axadkii weeyaan. aakhire ilowdiyo jannada aqaladeedii, addimaadda goortuu wadaad idin ogeysiiyo, aadaanka oo yeeray baad orod ku dhaaftaane, eygii hadduu idin duwaday, aadanba habowshay oo uu ibliis idinku muday, shalay iraabkiisa, inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? axadkii weeyaan. allah u naxariistee, bishii maarse 6deedii sanadkii 1900
1676 ayuu cali xuseen xamar ku geeriyooday isaga oo 63 jir ah. dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan ku kale hadduu eebba idmo.